wafdiga xisbul mucaaradka wadani wali waxay ku sugan yihiin gobol weynaha Togdheer waxaana aan loo kala jamcinaynin qaabilaadda shacabka jeestay qaybahooda kala duwan kadib xaflado dhowr ah oo xisbigu ku soo dhaweynayay bulshada isbedel doonka iyo xadhika jaridda 3 xafiis oo shacabka burco iskeed ugu furteen isu abaabulka tartanka guul lagu dhaliyo waxa wafdigu u jihaystay oo hay'adda Togdheer degmada loogu magac daray Qoryaale safarka wafdigu ugu kalayeystay degmada Qoryaale ayaa ka dambeeyay baaq isbedel doon oo xisbiga lagu ballamay uga yimi shacab weynaha reer Qoryaale iyo casuumad qada sharafeed oo wafdiga geel iyo ariba loogu loogay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro mudanaha wafdiga hogaaminaya reer Togdheer geed iyo guri u istaagaba waxay wada jir ugu cimaamadeen guusha tartanka doorashada gogol xaarkeedu socdo halka hogaamiyaha mucaaradka Xirsi Cali Xasan ilaa iyo haatan kubadda siyaasadda Soomaaliland ku xaraga dheelayo dhiilaynta goolka kulmiye dhexdiisa Qoryaale ayaa wafdigu gaadhay waxayna dhigeen reer Qoryaale wacdaro beeniyay mar kale wadar xisaabeedka korneelada kulmiye jeebabka ku sitaan dul iyo daafba dadweynaha reer Qoryaale ee duufaanta isbedelku daadahaynaysay waxay ahaayeen sidan dooc kastaba waxa shacabku wafdiga dawaafsiiyeen gudaha magaalada Qoryaale soo dhaweyn kulmiye uga dhignay dirbaaxa kulul kadib waxa wafdiga loo doonyeeyay damalada hadhacale halkaasi ay qorweynta duqeytida daayarta haweenka iyo hal abuurada degmaduba ugu diyaar ahaayeen dhiibashada bareerahooda isbedel doon iyo u quuskoynta korneelada kulmiye wali quudareynaya idmanayaal bulshadu iska soo dhexuleen oo fariinta shacabka siday waxay halkaasi hadallo iyo suugaanba ku muujiyeen kala xurashada marashixiinta baratamaya iyo sababta caruur iyo cirooraba loogu ballamay ka mid noqoshada xisbiga rashada shacabka wadani waxaanu media ka tusaynaa inaan kulmiye cid u xidhan jirin shalayna musabixina waxaanu leenahay nimankii ku shaqaale ahaa shalay baanu isqabsano $150 baad nagu yeelato waanu ku soo dhiibnay marka hadalka badin maayo waxaan ku soo koobayaa waa dadku soo wadani uma codayno soo Cabdiraxmaan ma doorano waxaan lagu kalifay inaan halkan soo diga rogano markaan arnay cadaalad darrada taala iyo guul darrada uu lagu sameeyay xusba kulmiye dirci kale ahaantii dalaal guusha kama helo dadka gees lagu yahay markaad leedahay dalkaan u soo halgamay dalka haddii aan dadkaasi ku kaabayn oo aan dadkaasi halganka iyo isbedelka aanay ka go'anayn qofna kaliya wax ma taradee Soomaaliland dadkaas mid aan u soo halgamin yar iyo weyn ma jiro dadkii xilliga majuurka ahaa ama qaangaadhka ahaa mid naftiisa ku bixiya mid maalkiisa ku bixiya iyo mid dhaqaalihiisa ku bixiya Soomaaliland waa loo soo wada halgamay waxaas inoo noqon mayso political siyaasad yani ay ku satisfier ba loo baahan yahay program satisfier political programka waa in la keenaa kulmiye kii hore uu ku kulmiye programkiisa hore uu ku faylgaroobay marka wax dambe in muddada ugu sii kornaa ma jirno dabna shaacir waxa soo socday diirad ku arkaan waxayna uma soo daga haddana dunida faaleey duco iyo habaar ku tirshaba daahir loo arag waxaan uga daleeyahay haddaan idin dareensiin xisbiyadan isdaran dooriyay doorasho u taaga darankiya najiidada haddii aan dub uga faalloodo dabka baxayaba uumiyuhu dacal ka raacaa wadana dadkuba doonayaa loo diyaar yahay haddaan sida kila u sheego bulshay muusana sareeyo hargeyso ninkii sulaaqay ninkii shaanida sameeyey ninkii siilaan yacaayay ninkii siduu doono yeelay abaalka ninkii saluugay haddayn madaxweyne saarno dadkeenna siduu dhahayo su'aal weeye la yaabo haddaan sida kila u sheego hoggaanka dalkayn saluugnay hantida qarankeen la soocday dadkeenna raggaa sumeeyey dhaqaalaha sii dhacaya sixiir bararkaanna haysta qabyaaladda saaka taagan farteenna haddaynu siino ciraa naga saari doona waxaana laga xidhay garoomadii waxaana laga xidhay maxaa ku dhahay dhammaan adeegyadii bulshada waxaana laga xidhay garoonkii burco waxaana laga xidhay kiil ceerigaabo waxaana laga xidhay kiil laascaanood
waxaana laga xidhay kii caynaba waxa weeyaan intaasoo dhan adeegga bari dawladdu isha bari way beeshay gebigeedba dawladdii somalilan qabiilkiyow wuli xisbiga waddani astaanta ha ku garan doontaan ee dhegtiinna markiiba ku soo dhacaysa oo uu leeyahay waxa weeyaan qarankiyow buu leeyahay qaranku ha guulaysto qabiilku ha dhaco inaan ka jawaabo kelmad maalin hore wasiirka cali marreexan uu ka yidhi xafad burcaa wuxuu ku sheegay wuxuu yidhi ninka geela badan iyo ninka geela badan waa la kala yaqaan buuri ninka halaa yar waxaa lagu yaqaan buuri uu ku foorfooriyaa u weerariyaa ninka geela badanna mar buu soo ooda ka soo rogaa buuri isagoo kulmiye ku sheegaya ninka geela badan waddanina ku sheegaya ninka geela yar in badan baan daba socday arrintaa waa ka jawaabaya berigii raggii hore waxaa la yidhi mar geedku isuguma jiro waa iswaraysan jiri ninka markuu geedka yimaada nin baa rag ugu yimi geedkan oo kale waa la waraystay wuxuu yidhi waaryaaro waxaan soo maray 100 halaad oo 10 halaad ku socda iyo 10 halaad oo 100 halaad ku socda macnaheedu waxa weeyaan 100 halaad oo dayacan oo wada xanuunsanaya oo gaajoonaya oo cidi ku dadaalin oo wax ka sii dhacayaan oo maalin walba ka sii dhacayaan kulmiye waxba ka sii dhacaya waa fudciida waxba ka sii dhacaya iyo 10 halaad oo ku tabcay oo qurxiyey oo meel wanaagsan maraya yaan soo maray buu yidhi markaa 10 halaad 100 bay noqdeen 100 halaadna 10 bay noqdeen kulmiye maanta waa toon kulmiye maanta waxaa la geel badan u sheegan kulmiye qoryaale maanta waa ku 10 halaad soo maaha waddanina soo 100 halaad kuma aha ha guulaysto waddani waxaan u sheegayaa muuse uu ka xidhxidho bari waxba laguguma hayo somalilan waxba laguguma hayo booraba wax laguguma hayo gabiil ayaad sheegata wax laguguma hayo waxa weeyaan isku xisaabtan adigu waxaad ku fooftaa inaad noqotid askari amarka qaata maxaan kugu dhaadayeen jananka ciidamada somalilan saraakiisha xisbul mucaaradka ee wafdiga qaybta ka ahaa jaambiir cabdilaahi ciro abiib ambaasadar cawaale maniir xamarji oo iyana halkaasi ka hadlay waxay ku dheeraadeen doorka dareenka reer Qoryaale ka qaadan doono qaranka kulmiye dargad u kala qoqobay maantana kala qaybin jeegaamaysan codka kaga raadinayo annagu haddaanu nahay magaca subeer wal kul maanta in cigaal kula haddaanu idinla imanayn nin maxamed xaaji ibraahin cigaal kula dadkaanu ku hadlay karano isku wadi karaa kol haddaanu haysan maanta intuu waqtigu qofna siinayo annaga hanoo xidhxidhnaanina subeer awal maanta waxaa ka weyn qaranka somalilan qaabkii la isku wadi lahaa taasaa ka sarraysa nin idinku yidhaahda reer hebel baynu nahay qaranka somalilan baa ka weyn waxaan idinku guubaabinayaa oon idinka mahad celinayaa oon idinku ammaanayaa inaad inala ilaalisaan qaranka somalilan qabiilka kaasaa ka weyne qabiilkuna macno badan ma laha qoqob in laynagu kala xidho way iman doonaan niman idinku leh tollaayaa reer hebelay annaga oo eegnay oo qiimaynay qarankan somalilan sida ugu wanaagsan ee uu ku jiri karo ee uu ku noqon karo qaran horumaray oo gaadhay himiladiisii uu lahaa ee aqoonsigu kow ka ahaa walaalayaal xisbigani barnaamij aad iyo aad u wanaagsan oo lagu dhiqi doono insha allah marka uu guulaysto dalka ayuu leeyahay ka hala akhristo waxa uu yidhi cabdiidan labadii isgumeeyey een kala geeri dambayn galshadaa la dhuraayo bal inaan wax ku gaadhno gacmaha ma isqabsanna maantay taagan tahay gacmaha inaynu isqabsannay taagan tahay haddii kaley dib uga nitaaqdo wallaahi waxay idinku gaadhay imika 50 sannadood wallaahi waa idinkaga badanaysa haddaanu nahay qoladaha galbeed ka timid waanu shiray waxaanu rogrognay somalilan maxay ku badbaadaysaa in badan baanu arrintaa ka fakaraynay waxaanu garannay inay somalilan ay ku badbaadayso tolaya somalilan ee tolaya reer hebel inaanu ku badbaadayn markii aanu taasi isla garannay ayaanu soo boqolay xaggan bari waxa maanta noo muuqata inay nagaba horreyseen idinkuna marka waxaan xusuustaa heestii ahayd waabad iga darreydeen show maanta waxaa noo caddaatay inaad tashateen oo aanay wixii la sheegaya waxba ka jirin waxaaseen ka yaabanahay talo maxay ku sheekaynayaan inaan wixii soo aragnay maxay noogu sheekayn doonaan kuwii waxaa shubayey maxay noogu sheekayn doonaan aad iyo aad baan idinku hambalyaynaynaa deegaankani guddoomiye wuxuu caan ku yeeday inaanu laaluushka qaadanin waxaana kuu caddaynayaa ninkii wakhtigaas soomaali ugu tijaarsanaa oo la odhan jiray xashiish oo wax kale kuma garatid ina jibcaaliyo daabshiilka maanta oo kale ahaa ama kaba lacag badnaa ayaa deegaankan iska sharaxay
waxaa ku soo baxay xildhibaankii rabitaanka deegaankani ay oggolaayeen maamaha caana waana ka baxdo waxay ahayd maxaa qoryaale ka raacay xashiish timir badan buu keenay ilaahay dadka jannada ha u nuuree marka horta deegaankani laaluush ma qaato ugu dambeyn hogaamiyaha mucaaradka ee gobolka Togdheer garoonka siyaasadda korneelada ugu awood sheegtay iyo murashaxa dadweynuhuna daadihii wada leeyihiin Dr. Ciro ayaa iyaguna halkaasi ka jeediyay mahadnaq iyo ku boorinta baratanka dhalinta guusha bulshadu wadani ugu ballantay waxay ku sheegayaan kulmiyaan awood kala haynin inuu propaganda iyo huuha iibiyo mooyaane awood kala ma hayo gaar ahaanna waxaan ugu hambaleynayaa beesha Abubakar Axmed ku soo beertayna maanta waxa weeye wadani gaar baan ugu hambaleynayaa dhalinyaradii waayeelkaba intii ku soo beertay maanta ku cusbayd intii hore wadani u ahayd dhammaantood kulmiya waa tagayaaye u adkaysta kadeedka maamulka halkan waa aad looga cawday halkan maamulka jooga waxaanu leenahay waad ka tagaysaa waad ka tagaysaa idinkana waxaanu leenahay waaro dulqaat waad ka tagaysaa dadka waxaanad xaqa ugu lahayn kada sharcigu waxaanu xaqa kuusan kada waxaanu leenahay qof sharciga lagu yahay dawlad sharciga wax lagu yahay kala dambeynta waxna loo sheegay dad badan oo dib loo geystay waxaanu leenahay dadka dhibtaha dhibina maamulka waan oognahay ciidamada waa ku amaanaynaa habka nabadgelyada iyo maamulka iyo ilaalinta waa ku amaanaynaa laakiinse waxaanu leenahay halka ka aan leeyahay kada shalayto iyadoo halkan lagu dilay oo nin shicib ku dilay oo waxa uu sameeyay ku dilay ayaan anigu ka qaadayo isagoo lug la geeyay ka qaado dawladda Roomo beentayba dadku waa dadkii maanta awoodeena waxaan isugu geeynaa xisbiga wadani insha Allah waxaan doonaynaa inaynu waxa naga xumaaday kuwada toosino hadday tahay maciishadii dalka iyo sidii dadku u noolaa hadday tahay soo celintii haybadda dawladnimada haddii ay tahay hantidii qaranka haddii ay tahay dhinac kasta markaad eegto dubudhac badan baa inagu dhacay waxaad moodaa albaabada in waddankii loo laabay oo beeshii caalamka Soomaaliland aad u danayn jirtay ay ka xiisa jabtay baad moodaa maanta waxaad moodaa ictiraafkii aynu ku dhoweyn inaynu ka durugnay waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin ninkii halka ka dardaarmayey markii hore badii uu tiriyey runtii waxay ahaayeen kuwa aan sheegayo waxaana loo qorshaysan raggii kaadirka ahaa ee hawshaa fulin lahaana waa haynaa hadday tahay aqoonsi hadday tahay in dhaqaalaha la hagaajiyo hadday tahay waxbarashada wax laga qabto hadday tahay waddooyinka wax laga qabto Togdheer oo mid ahi waxay u ballameen sagootinka xisbiga shaxda uu ku dheelayo tartanka siyaasaddu ay tahay midii 60kii kulmiye Cabdirasaaq Teera Kalsan TV Qoryaale